waxaan ku faraxsanahay saakay kulankeenan iyo shirkeenan inuu noo qabsoomo. Shirka isuuna wuxuu ku saabsanaa iswaraysi iyo sidii loo wada shaqayn lahaa in laga tashado. waxaanu aad looga wada hadlay sidii doorasho dalka ay uga dhicin lahayd jawi nabada ku dhacda wada ogola insha Allah billahi kariim. waxaan noo bilaabatay xisbiyada siyaasadda iyo beek shaqadaas horutaminta leh ee lagu dalkan ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo codihii maaragtay in waxyaabaha qabyada ka ah sidii la isula dhamaystiri lahaa shir isfaham iyo maaragtay isla qaadasho wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan laga ballameyna waaha waxa laga tashtay waxa la iska weydiiyay sidii maxaa loo dhaqaajin lahaa loo sameyn lahaa xeerarkii iyo maxaa la yiraahdaa shuruucdii muhiimka ahayd. xigmaduna waxay tahay in dadweynuhu doorashooyinka golihii deegaanada soo dhacay inta dhiman dadweynuhu ay hogaankooda siyaasadda qof iyo cod ku doortaan oo iyagu la soo baxaan. runtii waxyaalo badan aanu halka uga mahadcelinayno bayna la wadaageen guddiga doorashooyinka oo u qabsoomay muddadii yarayd ay shaqada joogeen. doorasho qof iyo cod buu dadweynuhu doonayaa. doorasho qof iyo cod buu dadweynuhu doonayaa. waxaan nahay dowlad xora daliya shicib wada jiriyo diintooduna ay mid tahayo shacabku daalayay doorasho xora buu rabaa. waxaan ku faraxsanahay saakay kulankeenan iyo shirkeenan inuu noo qabsoomo oo ah kulankii ugu horeeyay ee ay ku kulmaan ama isugu yimaadaan guddiga doorashooyinka Puntland iyo xisbiyada siyaasadda Puntland. waxaan rabnaa inaan halkan idinku soo dhaweyno idinkuma cusba xarunta guddiga doorashooyinku laakiin waxa cusub waxa weeye guddiga doorashooyinka Puntland oo ay tahay markii ugu horeysay aad kulan yeelataan iyo idinkoo ka soo gudbay ururadii siyaasadda ee maanta ah xisbiyada rasmiga ah ee siyaasadeed ee Puntland. waa arrin qiimaheeda gaarka iyo farxadeeda gaarka leh inaynu kulankan isugu nimaadno. maanta waxa shir isugu yimi guddiga beek iyo xisbiyada Puntland. shirka isuuna wuxuu ku saabsanaa iswaraysi iyo sidii loo wada shaqayn lahaa in laga tashado. runtii iyo xaqiiqdiina si wanaagsan ayuu noogu dhammaaday. alxamdulillah waana wax ilaahay looga mahadceliyo. maanta waxaa halkan ku qabsoomay kulankii u horeeyay oo ay yeesheen mas'uuliyiinta xisbiyada siyaasadda ee Puntland iyo guddiga doorashooyinka ee Puntland beek. runtii wuxuu ahaa kulan minadhar ah jawi wanaagsan noogu dhacay insha Allah. waxaanu aad looga wada hadlay sidii doorasho dalka ay uga dhicin lahayd jawi nabada ku dhacda wada ogola insha Allah billahi kariim. dimuqraadiya oo dadku ay codkooda ay ku dhiibtaaneen oo ku doortaaneen mas'uuliyiinta hogaamin doona insha Allah billahi kariim. waxaan rajaynaynaa markaa insha Allah sharciyadii doorashooyinka iyo sidii looga wada tashan lahaa oo sharciyada doorashooyinka lagu galaayo looga wada tashan lahaa ka bacdina loo ansixin lahaa sharciyadaas ayaa iyadana ku jirtay kulanka. si wanaagsan buu u dhacay insha Allah. waxaan rajaynaynaa in insha Allah Puntland ka dhacdo doorasho nabada jawi nabada ku dhacda wada ogol ku dhacda waqtigeeda ku dhacda insha Allah billahi kariim. aad baan idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullahi. maanta oo ahay bishii October 18 waxaa noo qabsoomay kulankii koowaad ee xisbiyada siyaasiga iyo beek ay wada yeeshaan. runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah isbarasho iyo wada shaqaynta shaqooyinka noo yaala iyo shaqooyinka horutubinta u leh dalkan inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. waxa allaale waxay u baahan tahay maaragtay ururada xisbiyada iyo beek wada shaqayn lahayd. beega warbixin naga siisay ilaa hadda waxa u qabsoomay iyo meesha ay soo gaareen. runtii aragtidoodana si furan oo wadata maaragtay ay ugu biiriyeen xisbiyada siyaasaddu
waxaa noo bilaabatay xisbiyada siyaasadda iyo beek shaqadaas horutabinta leh ee lagu dalkan ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo codihii maaragtay in waxyaabaha qabyada ka ah sidii laysula dhammaystiri lahaa shir isfaham iyo maaragtay isla qaadasho wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan laga ballamayna waaha waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii ka dambeeyana meesha loo socdo iyo himiladu inay noqoto mid mara dhasha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo taariikhdu tahay 18 bisha Oktoobar waxaa kulan isugu yimid guddiga doorashooyinka Puntland iyo xisbiyada siyaasadda runtii wuxuu ahaa kulan isbarasho iyo mid looga arrinsanayay xaaladda kala guurka iyo siyaasadda iyo doorashooyinka runtii wuxuuna ku soo dhamaaday jawi aad u qurxoon waxaa laga tashtay waxa la iska weydiiyey sidii maxaa loo dhaqaajin lahaa loo samayn lahaa xeerarkii iyo maxaa la yiraahdaa shuruucdii muhiimka ahayd marka aad iyo aad jawi isfaham buu ku soo dhamaaday insha Allah waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kulamo joogto ah oo mar walba ay lagu kala qaato warbixinada lagu kala qaato aad iyo aad baad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد دمان وسلامتهين waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta kulanka ballaaran ee markii ugu horeeyay aanu PEC la qaadanay haddaanu nahay xisbiyada siyaasadda runtii warbixino fiican ayaa la qaatay laysna siiyey xigmaduna waxay tahay in dadweynuhu doorashooyinka golihii deegaanada soo dhacay inta dhiman dadweynuhu ay hogaankooda siyaasadda qof iyo cod ku doortaan oo iyagu la soo baxaan geedi socodkaasna si aan turxaani ku jirin dhibaato kaleetana ayaan ka iman in baa la isula qaatay in loo daadihiyo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan inta dambena isla sii wadi doono waana mahadsantihiin ugu horreyn bismillaahir rahmaanir rahiim maalinkii u horeysay iyo shaqadii wanaagsaneed ee noo qabsoontay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baanu u mahad celinaynaa waa kulankii u horeeyay ee xisbiyada iyo ay yeesheen guddiga doorashooyinka beeg runtii waxyaalo badan aanu halka uga mahad celinayno bayna la wadaageen guddiga doorashooyinka oo u qabsoomay muddadii yarayd ay shaqada joogeen runtii waxaan ka wada hadalnay sidii dalka uga dhici lahayd doorasho nabdoon oo waqtigeeda ku dhacda oo reer Puntland iyo bulshada reer Puntland ay ku wada qanacsan yihiin annagu xisbiyadii mucaaradkaana aanu ku qanacsanahay runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa wax loogu mahadiyo ay tahay in ay guddiga doorashooyinka ay waqtiga inta leeg jooga ay shaqada inta leeg noo soo bandhigaan aanu ku qanacsanahay shaqadooda iyo hawlwadeenada degdega ah ay qabteen runtii xisbiyada siyaasaduna ay ku mahadsan yihiin inay yihiin xisbiyadii u taagan inay bulshada reer Puntland rabitaankooda u rumeyn lahaa inay yihiin ka guddi ahaan iyo xisbi ahaanna aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa kulankii u horeeyay iyo waxqabadkii u horeeyay baan la kulanno anagoo xisbiya u gudubnay oo urur ka soo gudubnay iyo guddiga rasmiga ahaa ee doorashooyinka ee beeg runtii wax aad loogu mahadiyo ku dheeraan may ragii iga horeeyay asxaabtii iga horeysay iyo madaxdii iga horeysay baa kulankii faahfaahisay intaasaan ku soo gabagabaynayaa